qaraxyadii Zoobe dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ka tirsan wariyaasha VOA uga soo warrama magaalada Muqdisho. Cabdulqaadir waa markii labaad ee uu ku dhaawacmayo magaalada Muqdisho isagoo dhaawiciisii koowaadna uu ka soo gaaray qaraxii Zoobe ee 14 Oktoobar ee sanadkii 2017. Haddaba wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa qadka Skype-ka magaalada Muqdisho ku wareystay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. cabdulqaadir ku soo dhawow VOA markuu ugu horeysa dhaawac ku soo gaaray aad baan uga xunnay anagoo VOA xaaladaadu sidee tahay sidee dareemaysaa waqtigan aad ila hadlaysid abdaasiis aad baa umahadsan tihiin dhammaan VOA-da iyo guud ahaan madaxda iyo howlwadeenada saaxiibada waa idinla qabaa xanuunka iyo saad ila damqateen hadda marka loo eego 29 bisha marka dhaawac soo gaaray iyo hadda wada hadlayno xoogaa waxaad moodaa inaan soo kabanayo xaaladii iyo daruuftii meesha ka dhacday waxaan ku jiray dadkii waxyeelada xooggan ee ka soo gaartay qaraxii labaad oo aad ku xoogganaa laakiin waxaan ku jiray dadka ilaahay u yasira marka loo eego saaxiibadii dhintay dadkii la joogay dadkii mushkiladda weyn ee ku dhacday marka waxay soo gaaray dhaawac u badnaa maaragta dhanka gacanta midig sidoo kalena maaragta xabadka iyo caloosha meelo ka mida fiire ayaa iga galay waxaana ka mid ahaa dadka qaraxa labaad uu saameeyay Cabdicasiis marka loo eego maanta waxa dhacay ilaa hadda xaaladdu soo wanaagsanaanaysa waana ka soo baxay isbitaalka oo lagu tacaalayay waxa dhaawac ugu xooggan ugu soo gaaray gacanta midig oo maaragtay laba faro ka mid iga go'een farta saddexaadna jab uu iga soo gaaray oo maaragtay hadda kab iyo wax lagu tacaalayo sidoo kalena qaybaha sare ee jirkeyga gaar ahaan dhankan midig firra iga galay oo hadda daboolan caloosha dhowr meel oo ka mid ah waxyaabo fiirraa birihii ayaa meelaha qaar ku jiro iskaanada iyo dhaqaatiirtu ay sheegeen marka loo eego si wax u dhacay xaaladeydu ilaah baa ku mahadsan aad baan haduu fiicana waa tahay marka Cabdulqaadir waqtiga qaraxu dhacayay adigu xagee joogtay intaad ka xasuusatid Abdaasiis qaraxa koobaad markuu dhacay waxaan joogay meel aan sidaas uga sii fogeyn iskuiska Soobe oo meeshaan joogayba firir iyo burbura soo gaaray halkaan soo sugnaa laakiin qaraxu xooganaa iyo xaaladda oo aad u uslayd shaqadana waa lahaa maantaas oo waxay ahayd maalin sabti oo shaqada aan ku qornaa marka waan soo baxay waxaan si dhaqso ku soo gaaray iskuiska Soobe oo markii hore baan ka fogeyn halkaas oo aan rabo bal inaan warbixinada iyo xaaladda meesha ka jirto aan hubiyo oo aan ogaado oo idaacadda markaas soo gal lahayd 4 galabnimo aan soo tabiyo markaan meesha mid waxaan la hadlay maaragtay madaxa VOA-da laantada afka Soomaaliga Cabdiraxmaan Yabarow oo aan u sheegay in mushkila meesha ka dhacday dhimasho dhaawac jira xaaladdu adag tahay marka telefoonka aan dhigay oo maaragtay aan Chief Cabdiraxmaan aan report gareey kadibna wax ka yar 10 daqiiqo malaha ayuu qaraxu dhacay marka aniga waxaan joogay ubuucda meesha wax ka dhacayeen markii hore oo aad u burbursanayd oo qaraxa meeshu ka dhacay malaha maaragtay 20 tilaabo meel u jirtaan joogay saraakiil booliisaha meesha joogtay oo goobta soo gaartay kuwaas oo iyagu iga dalbayeen inaan meesha ka baxo xaaladdu adagtaa qaraxyo kala jireen yar kaloo wariyaha oo ila socda Allah u naxariistay hoggaana ayaa isna ila joogay oo qolada booliiska meesha joogta saraakiisha booliisku way aad walaa u muujinay marka yarka wariyaha uu iga dhaqaaqay dhanka marka laamiga loo eego dhinaca kale u gudbay anigana leen kale oo hadda qaraxa saameyntiisu aad ugu dhacay ayaan aniga saraakiisha booliiska heedaan ku sii hakanay laakiin dadaalkana uu ku jirnaa meesha ka baxna rabno oo maaragta uun meesha ugu dhow laamigana ka baxna rabno laakiin intaan meesha gaarin qaraxa dhacay kadibna xaaladdu waxay noqotay allo sahal oo qofka hadli karay si wax yihiin qof qiyaasi kara ma jirna Cabdicasiis marka waxaad tiri wariyihii dhintay Allah u naxariistay waa isla socoteen wadada dhinaca kale uu gudbay qaraxii labaadna sidaas uu ku dhacay adigu marka qaraxii labaad markuu dhacay maxaad dareentay miyaad dhaawac ahaan markii lagu qaaday ma adigoo miir gadoomay oo miirkaagii mataqaana u tagay baa lagu qaaday mise waad miir qabto wixii hareerahaagii iyo argagixii iyo mataqaana iyo dhawaqii iyo wixii meesha ka socday waad arkaysay Abdaasiis qaraxa markuu dhacay marna ma ogaal beenin mar quraha dusheena qarfo iyo dhagxaan iyo wax kastoo aan la qiyaasi kareynin
oo uun xaalad jahawareeraan galnay saraakiil dadka ila joogo u badnaa ciidan iyo saraakiil ila taagneed qof kastaahi sibaa u soo gaareen markii hore waan ordi waayey maaragtay inaan jiiftaa isku dayey waan jiifo waayey indhaha iyo waxa dhan carra iga gashay kadib maaragtay inaan istaagaa isku dayay istaagga waa ii suurageli waayey markii dambe oo maaragtay dhowr daqiiqo kadib aan isfiirshay marka waxaan arkay in gacanta faruhu ay go'an yihiin in xabadka dhiig iga socdo xabadka dhiig xoogana markaa iga baxaayo kadibna meeshii ugu dhoweed oo ahayd meel wadda isgoyska sooba ka leexanaysaan garbuurasho iyo xaalad ku tegay in cabbaara markii aan annagoo badan oo u badan asgar ciidan iyo saraakiisha qaarkood oo dhaawacaya luuqa aan la galnay madaxa gaari baa meesha taagnaa gaarigana si loo fulaa waa iska adkeed markii dambe gaarigaasaan uun gacantii ii fayaabeed ku qabsaday gaarigii aan qayb ka raacay laakiin marna ogaalkayga muusan tegin markii goobtaan ka fogaanay oo qofkiina waday oo dabcan gaari ciidanka ahaa asnaftiisu wuu shoogay dhanka madiino noo wada degmada wadajir xaggeedu noola cararay marka in cabbaara kadib taleefanadaydu nasiib wanaag mid ka mida meeshuu ku lumay laakiin kan kalea ii shaqaynayay marka dadkay soo wacaya waxama wici karin farihii iga go'ay gacmihii aan telefonka ku wacalahay maaragta laba ka mida way go'day telefoonka baasweera ka horey oo in baasweerkaan furtay ma suuragali maahayn farti baasweerkaan ku fura lahaa iyo farti ka xogta way go'nayd marka waxaanu ii sahlanaatay markii dambe in haddii laysoo waco meelaha qaar ay qaban kara telefoonkuna dhiig badan iga buuxshay markii dambe isbitaal madiine markaan tegayaa qof yaqaana baan ka dalbay inuu telefoonka ii soo baxsho oo xaaladaas la tacaalay marka dadka ugu horreeya la hadlaa ka mid aheed aan u sheegay dhaawac ahay laakiin markii hore waxay ahayd xaalad allo sahala oo waxaan qiyaasi kara maysan jirin laakiin haddana ogaalku marna muusiga tegin waan xasuustaa cabdiqaadir inaan wada hadalnay taleefonka kaala hadlay aad ii sheegtay inaad dabcan mataqaanaa dhaawacan tahay runtii naxdin bay ahayd inaan codkaaga maqlo adigoo taa haya marka dadkii meesha ka agdhowaa eed isla joogteen ogaalka intaad xasuusato sidee wax u gaadheen ma qaarkood ma ku dhinteen kuwii kuu dhowaa wiilka waryaha waad sheegtay laakiin dadkii kale meesha kaaga dhowaa sidee xaaladoodu ahayd cabdicasiis dadka ila joogay badankood ama intooda badanba way dhaawacmeen qof ka mida wuu dhintay marka laga yimaado erka waryaha taaliyihii saldhigga hodon xuseen cadaayad wuxuu ahaa qofka goobta meeshii fogeed oo joogay iga soo saaray gacantay qabtay igu dhahay cabdiqaadir meesha ka bax qaraxa dhici karo qaraxyaa yaallo maaragtay meel fogaan markii hore joogay oo aada ugu dhoweeda maaragtay maqaayadda fatxi xuseen wuxuu keenay meel suke oo meesha wax nagula dhacayeen ah dadkii ugu dambeeyey ee la hadlayana xuseena ka mid ahaa ma xasuusto markuu meeshani keenay jihada u dhaqaaqa ma xasuusan kara laakiin waxaan xasuustay aniga iyo xuseen cadaayad oo ahaa yarka taliyaha saldhigga sodon ee meesha ku dhintay taliyihii saldhigga waa beri osna dhaawac noqday yar kaloo cabdi cali la yidhaaho osna gaashaan lahay oo dhaawacmay dhallinyaradii ciidanka ee booliiska ahayna baabuurkaa wada raacnay gaariga aan raacay oo booliiska ahaa waxa ila saaraa dhammaan asgaray ahaayeen oo ku dhowaad 10 qof aan ku raacnay gaariga qaybta yare ee dusha bannaanka 10 qof oo dhaawac oo dhiigbaxayso oo qof la hadli kara uusan ku jirin oo aniga anigu roona markaas fiirada xaaladooda ayaan gaariga dushiisa ku raacnay marka meesha aan joogay qof asigoo bad qaba oo aan dhaawac qabin ka soo baxa ma jirin dad dhintay iyo dad dhaawac ay noqdeen waa tahay cabdiqaadir sanadkii 2017 qaraxii soobe ee 14 dadkii ku dhaawacmayna waad ku jirtay kulli makhraati nool baa tahay ilaah baana labadaba kaa badbaadiyey markaad labadooda isbarbar dhigto maxay kula tahay qarax ahaan xajmi ahaan dee labadiiba dhibaata kaa soo gaadhay adiga markaad barbardhig labadooda isku samayso maxaad labadooda ku kala qiimeyn lahayd waa runta cabdicasiis labada qarax ee 14 Oktoobar 2017 iyo 29 Oktoobar 2022 iyo dhowr maalin ka horna labada qaraxba waxyaalo iga soo gaartay oo kii ugu dambeeyana xubnahayga qaar ka mid ah ku waayay farahayga qaraxa 14 Oktoobarna xaalad miirdaboolana galay oo aan kala garanayn waxa dhacay iyo sida waxay ahaayeen laakiin markaad fiiriso labada qaraxba waxay ahaayeen laba qarax oo aad u xoogan oo maaragtay aad u
gilgilay meeshaan ku sugnaa oo xaaladeyda bedelay oo maaragtay 14 Oktoobar qaraxa si weyn ayuu ii saameeyay guud ahaan madaxa iyo guud ahaan jirkeyga waan gubtay dab ay qabsaday xoogan waxaa sidoo kale galabkaas aan qaraxaasi ku waayay 14 Oktoobar kameramaankii anigii la shaqeynayay Cali Nuur Sayid Axmed Allah u naxariisto markaad fiirisaa laakiin labada qarax inkastoo 14 Oktoobar uu weynaa waxyeeladiisa ugu badneyd xaalad adag oo kooma aan galay laakiin haddana mid kale wuxuu iga duwanaa waan miir qabay waxaan arkay waxa igu dhacay waxaan ana isla tacaalayay dhiigayga baxay xubnahayga go'aan qaarkood gacanta ku watay fartayda marka fartu iga goodo farta labaad way laalaaday gacantan ku qabsaday inay badbaadisaan moodayay oo maaragtay gacanta ilaa isbitaalka la geeyay Madiina ilaa isbitaalka dambe la soo qaaday fartayda oo maaragtay laalaado maqaarka ku dhagan ayaan gacanta ku wato islaha way badbaadi doontaa waxaan arkay dad dhimanayo waxaan arkay dad dhaawaca waxaan gaari ila raacay ku dhawaad maaragtay tobaneeyo qof oo booliska ka tirsan aniga isbadbaadinaya aniga ordaya aniga nolol raadinaya maaragtay isdahay uu meesha ka badbaad maraan garguuranayay mar aan maaragtay xabadka ku socday marba daruufaan wajahaya marka labada qarax way xanuun badnaayeen way saameyn badnaayeen dad badan baa ku leeday laakiin waxay ugu kala duwanaayeen midna waxaan galay xaalad kooma ah oo miir daboolan ah oo aniga la caawinayo la wado oo maaragtay ma ogeyn waxa meesha ka dhacayo isma badbaadi karin midkan hadda dhacay dhowr maalin ka horna aniga ordayo oo nolosha inaan badbaadiyo aan raadinayo marka waxay ugu kala duwanaayeen xaaladda xanuun iyo mushkiladda ay qabsatay waxaad moodanay kala xanuun badnaayeen aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyaheena magaalada Muqdisho oo qadka iskaabka ugu waramayay Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo jooga magaalada Washington.